السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. laba shay oo naftaadu ay necib tahay, laba shay oo naftaadu karaahaysanayso ayuu xabiibku u sheegay calayhi salaatu wasalaam. laakiin labadaas shay ee naftaadu ay karaahaysanayso, nebigu wuxuu yidhi khayrun lilmu'min, mu'minka khayr baa ugu jira. dhammaanteen maanta waan karaahaysaynaa labadaas shay oo ma jeclin, laakiin xaqiiqada dhabta ah waxa weeyaan in labadaas arrimood aynu karaahsanayno uu khayr noogu jiro. labaasaan kula qaybsanayaa maanta. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu nagu arsaaqo inaan raalli ku noqonno waxyaalaha noo wanaagsan ee xagga ilaahay nooga imanayo kuwa ku qanacna inaan noqonno. qaala tacaalaa فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين. إلهي وحو جعلي هاي كوبا إساقا تلا سارتا، إلهي وأو جعلي هاي كوبا مكا قوان قاريان إلهي تلا سارتا سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لبضع الشيء حبيبك عليه الصلاة والسلام تكوبات المؤمن قفك مؤمن كا يكره الموت، موت كن عبي هاي قفك مؤمن كا موت كن عبي هاي قفك موت كا وأو كراهي سنيا ولكن الفتنة إن أو فتنوبا أيا أو خير بدن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن دمتو أياك خير بدن الفتنة ذو الدنيا أتكتكتو أدي إله يسوع جل جلاله، أدي إله يكلقو أي أدي إله سبحانه قان لهين adiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarkiisa aadan qaadanayn adigoo fitnoobe ama maal ha ku fitneeyo ama adduunyo ha ku fitnayso ama siyaasad ha ku fitnayso ama dhibaatooyin kale ha ku fitnayaan adigoo oo fitnoobe oo ilaahay waaya waxaa kaaga khayr badan adigoo ilaahay calaaqa la leh laakiin aana fitnoobin oo dunidan ka taga. saas uu xabiibku calayhi salaatu wasalaam. mu'minku ama qofku mawdka wuu necib yahay laakiin fitnada uga daran buu calayhi salaatu wasalaam. dan waxa uu khayr badan inuu dhinto intuu fitnoobi lahaa weeyaan. ilaahay fitnada naga ilaaliyo waa koobaad. talabaad wuxuu yahay xabiibku calayhi salaatu wasalaam qillatu almaal. qofka muslimka uu necib yahay yani yakrah qillata almaal, maalka in lagu yarayo, inuusan maal haysan oo sabool yahay oo faqiir yahay ama uu nolosha la qaybsado qof faqiir ah ama uu mataqaanaayo qof faqiira u dhalo, waxaas oo dhan waa uu karaahaysanaya. laakiin xabiibku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakina alxisaab, xisaabta yawmi alqiyaama ayaa uga khayr badan buu yidhi. yani inuu faqiir noqdo uga khayr badan. xisaabta ka dambaysa hadduu ogaan lahaa qiyaamaha sida la isu xisaabinayo accountability-ga iyo auditing-ka la isku samaynayo hadduu qofku ogaan lahaa inuusan maalba sameeyeen baa u khayr badnaaneen buu calayhi salaatu wasalaam. labadaa shay ood maanta aad karaahaysanayso aniguna aan karaahaysanayaan ayuu khayr kugu jiraa. waxaad ogaataa walaalkayga qaaliga inaad fitnowdo ilaahay ka magan gal. allaahumma ahyinii dha noole idaa kaanat alxayaatu khayrun lii, haddii noloshu khayr ugu jiro. watawafanii ilaahayow iwafso إذا كانت الوفاة خير لي، هدي دمشهدو أو خير يجرى تاكو دعيسو. أرنتك الله وحتر هذا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام إلهي الدنيا كدقن أكبر همنا، هم جنك ديلي أكو فكرنا ولا مبلغ علمنا أقانت يا وحن أن مرينا إلى الدنيا كوك سبنا أو هدف كنجو فكر كنجو دي النايت ونأخذه إلى الدنيا هلنا تانا كدعيسو نبي إنه كدعيس سنجر عليه الصلاة والسلام. وحدنا أوقاتها إلهي إنه رازق يهاي وكو أرزاق يو أذيقو أو نول وإلهي حقوق ترجع لما يسدوا كتجيسا إلهي نكحر ساسدنا كل ميسا إلهي وحن كرجينا إنه كبار نقول درو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.